السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحي dhibaatooyinka sigaarku iyo cudurrada halista ah ee uu keenaa. Sigaarku waa waxa ugu badan ee sababa 90% kansarka ku dhaca sanbabada lung cancer. Sidoo kale sigaarku waxa uu sababaa kansarada ku dhaca bishimaha, afka, dhuunta, hunguriga, sanbabada. Marka loo fiiriyo kuwa u liita hidahoodu, waxaa kaliya cudurradan laga hortagi karaa ayaa in la joojiyo cabista sigaarka. Dad badan oo sigaarka caba ayaa u dhinta kansaro badan oo keena sigaarku, taasina ma oga. Waxaa yeelan saynisyahanada ayaa lagu soo bandhigay kulanka ururka hab-neefsiga Yurub, waxaana lagu daabacay wargeyska cilmi neefsiga ee Lancet. Dadka ugu badan ee guuldareystay tartankaasi waxa uu ahaa dadka sigaarka aadka u caba. Cilmi baarayaasha ayaa baaris ku sameeyay xog badan oo ku saabsan caafimaadka iyo hiddaha mutadawiciinta ee mashruuca Biobank ee UK. Waxay eegeen cudurrada sanbabada ee loo yaqaano COP, kuwaas oo keena neefsi la'aanta, qufac iyo caabuqa feeraha oo soo noqnoqda. Isbarbardhig lagu sameeyay kuwa sigaarka caba iyo kuwa aan cabin, iyo sidoo kale kuwa qaba cudurka iyo kuwa aan qabin cudurrada, ayay ogaadeen inay qaybo ka mid ah dhiiggeenu u yareeyo khatarta cudurrada sanbabaha. Sigaar cabayaasha hiddaha fiican leh ayay hooseysa khatarta inay qaadaan cudurradaas. Sirta ka dambaysa haddaba sanbabadoodu u fayow yihiin iyagoo weligood sigaar cabayay ayay saynisyahanadu UK sharaxeen. Baaris lagu sameeyay in ka badan 50,000 oo ruux ayaa muujinaysay in isbedelada fiican ee dhiigga dadka ay kor u qaadaan shaqada sanbabka, ayna ka celiyaan saameynta dhimashada leh ee ay cabsida sigaarku leedahay. Golaha cilmi baarayaasha saynisyahanada daawadooda ayaa sheegaya in waxaanay baaristoodu ku ogaadeen ay horseedi karto daawo cusub oo kor loogu qaado caafimaadka u xun yahayna sigaarku. Waxaa hubaal ah haddii aad joojiso cabidda sigaarka inaad badbaadisid, caafimaadkaaguna uu badbaadayo, kan qoyskaagu badbaadayo, kan saaxiibkaagu badbaadayo. Haddii aadan joojin karinna ka dheero meelaha dadku ku badan yihiin, siiba haweenka iyo carruurta yaryar. Jooji sigaarka oo ka fakero caafimaadkaaga. Haddaba baadiyaha kiimikaalo sun ah oo ku milma dhiigga iyo maqaarka. Arrintan ayaa keeni karta muuqaalka qofka oo xumaada. Neefta dadka qaba sigaarka ayaa ah mid la dhibsado, waxaana uu saameyn karaa ku yeeshaa niyadda qofka, maadaama dad badani ay takooraan. Sigaarka ma ahan mid u wanaagsan nadaafadda shaqsiyada mid bulshada uu la nool yahay. Haddaba dadkan ayaa sameeyay talo loo sameeyay sigaarku waa dile. Shirkadaha soo saara ayaa soo raaciyay fariin ah inuu caafimaadka u xun yahay sigaarku. Tobacco Serious Dangerous Health. Carruurta yaryar iyo hooyooyinka ka dhow uguna nugul yahay sigaarku waxa uu yareeyaa muuqaalka maqaarka, maadaama uu yareynayo oksijiinta maqaarka, waxaana uu jirka dhammaantiis ku xidhayaa qiiq. sanbabadaha ugu darnaadaane baadiyo kiimikaalo sun ah oo ku milma dhiigga iyo maqaarka. Arrintan ayaa keeni karta muuqaalka qofka oo xumaada. Dadka caba sigaarka ayaa lafahooda yihiin kuwa awoodoodu liidato, iyaga oo gaari kara heer ay jabaan, kala goysyada oo xanuunaan ayaa lagu arkay in badan oo ay sameeyeen dadkaas caba sigaarka, waxaana mar walba halis ugu jiraan in la kulmaan caabuqa ku dhaca kala goysyada. Dadka ka dhow marka la cabayo waxay la kulmaan dhibaatooyinka caafimaad ee la kulmaan kuwan cabaya. Intooda badna waxay yihiin kuwa caba sigaarka, walow ay yeelan karaan sababo kale. Sigaarku waxa uu xun yahay habka taranka, maadaama uu yareeyo dhumucda xididada ku jirta. Waxa uu saameyn ku yeelan karo habka kacsiga labada jinsi. Rag badan oo caba sigaarka ayaa la ogaaday inaysan kacsan karin marka ay waqti badan ku qaadato sigaarku. Waxa uu dumarka caba sigaarka ayaa ugu jira halistan. Waxyeeladaasi gaar ahna xilliyada ay uurka u leeyihiin. Wuxuu saameyn toos ah ku yeelan karaa ilmaha ku jira uurka. Wuxuu sababi karaa in ilmuhu ku dhasho cillado caafimaad qaarkood ay adag tahay in lala tacaalo. Dumarka uu ku dhaco kaankarada ku dhaca afafka hore ayaa la ogaaday inay yaqaano faaluub
dumarka caba sigaarka ayaa kuwa halis ugu jira waxyeeladaasi gaar ahaan xilliyada ay uurka u leeyihiin saameyn toos ah ku yeelan kara ilmaha ku jirka uurka wuxuu sababi karaa inuu ilmuhu ku dhasho cillado caafimaad oo qaarkood ay adag tahay in lala tacaalo haddaba sigaarkaas oo dhiigga iyo macdan ku filan oo aan loo haynin unugyada muruqa ay u dhiman karaan marxaladan waxaana macquul ah in qofku wadnuhu istaago maadaama uu soo ururadii muruqa wadnuhu uu yahay mid aan wanaagsanayn sigaarka ayaa keeni kara in xididada maskaxda uu qaado dhiig ay dhumucdooda yaraato taasoo keeni karta xanuun halis ah oo loo yaqaan insulin kaasoo saxa xaddiga sonkorta ee jirka ku jirta sigaarka ayaa la rumaysan inuu sababo dhiig kar waxaana uu faragelin ku sameeyaa habka shaqada ee xididada yaryar taasoo keenta inuu siyaado cadaadiska uu dhiigu ku maareeyo waxa uu hoos u dhigaa baruurta wanaagsan isagoo kor u qaada mid xun waxayna tani guud ahaan waxa uu sigaarku qayb qaataa weliba uu ku leeyahay qodobka koobaad kaankagooyin badan oo ku dhaca xubnaha jirka sida afka ugaxansidayaasha dumarka sanbabada keliyaha ganaca hunguri madowga iyo caloosha sigaarka ayaa sidoo kale noqon kara sabab yeesha xanuunka alsarka waxa uu saameyn ku yeelan karaa qaniirada soo dhaafo hormoonka loo yaqaano inuu soo qofka sigaarka caba aanu yeelan hormoonkaas oo hela infection iyo hargab laga helo sigaarka ayaa sidoo kale sababa xanuunada loo yaqaano koob kuwaasoo caan ku ah inuu xirmo qayb ka mid ah hawo mareenka ama burburka sidaasna qofku ku geeriyoodo ee qaabilsan kale beddelka oksijiinta iyo wasaqda ka timaada ee loo yaqaano carbon dioxide haddaba sigaarkan ayaa xanuunada sanbabada qaarkood kuwa ugu daran keena waxaana u dhinta intaas maalintii oo keliyata 2 bilyan oo qof dalalka Afrikaanka oo keliya dad badan ayaa sanbabadoodu aad u dhinteen sida ay u cabeeyeen sigaarka mana ogaa wassalaamu calaykum